qiso cajiib ah. Qisadan waa mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibka badan uguna soo jiidashada badan oo ay qoreen culimada Islaamka. Ayaa maanta idin soo bandhigaynaa qisadan oo run ahaantii noqon doonto mid dareen baaxad leh kugu reebta. Gabar aad u qurux badneed, hanaan wacan Ilaahay ku manaystay, ayaa waxaa la sheegay inuu aad uga helay nin ay meel isku arkeen. Ninkii ayaa aad ula yaabay gabadhan quruxdeeda iyo qaabka Ilaahay u sameeyay. Ninkan ayaa isku dayay inuu gabadhan xiriir la sameeyo si uu ula sheekaysto, balse marar badan ayay ku gacan saartay iyadoo ka diiday inuu hadal la furo. Ninkii ayaa wada walba u soo maray sidii uu mar ku heli lahaa gabadhan, balse adoontii Ilaahay ku xiran quruxdan lagu manaystay ayaa go'aankeedu ku adkaysatay, iyadoo fursad dhan u diiday inuu ninkan u soo dhawaado. Ninkii ayaa go'aansaday inuu kufsado gabadhan oo uu xoog wax uga qaato. Maadaama uu xaalad wax uga waayay, wuxuuna xoogay gabadhii oo aan raali ka ahayn. Wax walbana qasab ayuu uga qaatay, balse arrinta la yaabka leh ee qalbigaaga dhaqaajin doona ayaa ah arrinta ay gabadhani ku dhaqaaqday intii uu ninkani hawshiisa watay. Gabadhan ayaa aragtay in ninkani uu ka xoog badiyay, waxa ay samayn kartayna aysan jirin. Waxay ku fikirtay wax ugu dhow ee gacanteeda gaarto inay soo qabsato, balse shaygii ugu dhawaa ay noqday waxa uu ahaa dab shidan oo meel agteeda ah yaala. Waxayna gacmaha la gashay dabkii, iyadoo gacmaheeda u beertay inay gubto. Ninkii ayaa hawshiisii dhamaystay, balse markuu ka istaagay ayuu la yaabay ficilka ay samaysay gabadhu, sababaha ku dhaliyay inay isgubto. Wuxuuna weydiiyey maxaa sababay. Waxay ugu jawaabtay, markii aan arkay inaad iga awood badisay oo aan haynin wado kale oo aan iskaga celiyo, waxaan go'aansaday inaan gacmahayga gubo si aanan ku dareemin dembigan aanan kula wadaagin. Arrintan ayaa la yaab iyo dhakafaar ku noqday ninkii, balse ficil ayay samaysay. Gabadhan ayaa noqotay tusaale cajiib badan, qalbiga qofka muslimka ahna dhaqaajiyay, iyadoo ay habboon tahay in lagu cibro qaato.